magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool weli waxa ku sii baahaya dhinacyada ku hirdamaya magaalada. dilalka haldoorka iyo tacadiyada kale ee shacabka loo geysanayo ayaa noqday mid joogto ah. 2 maalin ka hor khilaaf xoogan ayaa soo kala dhex galay jabhadaha ku dagaalamaya magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. sidaan xogta ku helay Cabdi Xaafid Gurey oo ka mid ahaa ciidamada ka soo goostay taliya Mahad Cambaashe iyo jabhadaha Laascaanood ayaa isku maandhaafay cid qaadanaysa hubkii iyo gaadiidkii laga qabsaday taliya Mahad Cambaashe. israsaasayn ayaana dhinacyada ku dhex martay xeradii hore ee ciidamada Mahad Cambaashe laga qabsaday. jabhadda oo ka shakiyay Cabdi Xaafid oo hadda wata guuto ka tirsan maleeshiyada rag ka soo jeeda beesha Jaamac Siyaad ee Dhulbahante ayaa diiday inuu wareejiyo hubkii iyo gaadiidkii laga qabsaday taliyihii guutada 7aad ee ciidamada Somaliland Mahad Cambaashe, isagoo ku dooday in hubkan adeerkii leeyahay isaguna xaq u leeyahay inuu gacanta ku hayo. halkaasna waxa ku dhex maray israsaasayn aan weli khasaaraheeda la xaqiijin. Cabdi Xaafid iyo maleeshiyada uu wato ayaana imika dhufays kaga jira mid ka mid ah buuraha duleedka Laascaanood. garaadada beesha Dhulbahante iyo guddida 33 ah oo dadaal ka galay sidii ay u dhexdhexaadin lahaayeen dhinacyada isku haysta hubkii iyo gaadiidkii taliya Mahad Cambaashe waxana jiitaa way ka gaari waayeen, welina khilaafkii waa uu taagan yahay.